بسم الله الرحمن الرحيم xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed oo loo aastay 21 November waa maalin weyn oo lagu xusuusanayo doorka weyn ee uu macalinku ku leeyahay abaabinta waxbaridda iyo horumarinta bulshada. Haddii aanu macalin jiri lahayn bulsho horumarta lama arkeen. Qof kasta oo dunida ku nool waxa uu dunida ku soo biiraa isagoo aan waxba aqoon. laakiin horumarka adduunyada ee la gaaray ee dayax gacmeedka lagu tagay ee teknolojiyada lagu horumariyay ee isgaarsiinta lagu horumariyay ee gaadiidka lagu horumariyay ee bulshadu iyo adduunyadu meeshay soo martay kulligeed waa wada garanayna. waxaa intaa isbedelka keenay waa macalinka. marka bulshadeena Soomaaliyeedna macalinku qiimo weyn ayuu ku leeyahay. waa midka barbaariya oo ababiya laga soo bilaabo macalinka ugu horeeya ee bulshadu leedahay ama qofku uu leeyahay oo ah hooyada barbaarisa caruurteeda barbaarisa oo haysa mas'uuliyadda guriga. waxaana ku soo xiga waalidka intiisa kale, macalimiinta dugsiyada quraanka, macalimiinta dugsiyada hoose dhexe sare, macalimiinta jaamacadaha, macalimiinta takhasusyada kala duwan dhiga. intaas oo dhan waxa ay tusaale u yihiin bulshada inaanay meelna gaadheen haddii aanu macalin jiri lahayn. wasaaraddu waxa ay ku dadaalaysaa ilaalinta karaamada macalinka. karaamada macalinkuna waxa ay ka bilaabataa marka hore inuu aamino inuu shaqada ku heli karo sir tartan furan ah isagoo aan loo eegin deegaanka uu ka yimid iyo haybta uu ka soo jeedo iyo cidda garab taagan iyo cidda uu ka rabo inay gacanta qabato ay shaqada geyso. labadii goor ee la qaatay macalimiinta waxaa lagu qaatay hab daah furan oo macalinku iskiis isagoo usoo dalbanayo isagoon cid kale soo marin, kadibna uu gelayo imtixaano kala duwan. ciddii kusoo guuleysatana ay gelayso tababarka kadibna lagu meeleynayo deegaanadii ay iyagu doorteen ama ay ka kala yimaadeen ay shaqada ka qaban kareen. marka dadku way weydiiyaan shaqo fiican baa la qabtay iyo wax wanaagsan weeye, laakiin waxaan ku iraahdaa waxaa wanaagsan inay ka jawaabaan arrimahaas macalimiinta naftooda iyo kuwii habkaas waxbarashada ku yimid ee shaqada ku helay ee maantana ku shaqeeya iyagoo sharaf iyo karaamo weyn leh. anaguna macalimiintanadu waxaan u haynaa sharaf iyo karaamo weyn oo ay ka mid yihiin xataa kuwa aanan dowladda u shaqaynin ee iyagu dadka Soomaaliyeed waxbara. waxaan xusuustaa aniga shakhsiyan 30 sano ee lasoo dhaafay macalimiin badan oo naftooda ku waayay iyaga oo ku jira fasaladii ama iyagoo u sii socda goobtii ay dadku wax ku barayeen. kuwa ku dhaawacmay, kuwa ku naafoobay iyo kuwa duruufuhu ay ku kalifeen inay ka baxaan dhulkii iyo deegaanadii ay deganaayeen ama dalkaba ay ka baxaan oo ay naftooda la cararaan. labadii sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare waxa ay dadaal badan ku bixisay in kor loo qaado macalinka iyo qiimihiisa, taasoo ka bilaabato marka horeeto in dowladdu ay samayso oo ay shaqaalaysiiso tiro macalimiina oo ku soo korodhay shaqaalaha dowladda, kuwaasoo loo qoonday inay 6 kun noqdaan oo ay ku jiraan qaarkood maamulayaashii iyo kormeerayaashii iyo maamulayaashii dugsiyada maamuli lahay dugsiyadaas. oo nasiib wanaag la geeyey gobollo iyo deegaano iyo degmooyin iyo tuulooyin runtii caasimadda aad iyo aad uga fog oo kumanaan ardayna siiyey fursad waxbarasho. macalinku waa tiirka iyo asaaska ay ku taagan tahay hawsha waxbarashada oo dhan, ha ahaado kan dowladda u shaqeeya iyo ha ahaado kan hay-adaha u shaqeeya iyo ha ahaado midka iskiis isu xilqaamay ee bulshada u taagnaa. waxaan runtii aanan iloobi karin nafurnimada weyn ee macalimiintu ay sameeyaan anoo og duruufaha adag ee ay ku shaqeeyaan. xuska macalinku inuu hal maalin noqdaa sanadkii wax sax ma ahan, laakiin maalintani waa maalin la weyneynayo oo kulligan aan isugu wada imaanayno, laakiin waa wax la doonayo inuu ku jiro maskaxdeena maalin kasta iyo habeen kasta, si kasta oo macalinka loo karaameyn karana in loo karaameeyo. qum lilmucalimi وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا.